السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبان دي سلام يا خيارة قيمة له ومركلة إيو channel كيني أحمد داود official channel. ما أنتوا حن ديارنا هاي إن نقلّو أنو سماينو challenge رنتي هذا قيمة بدن أو رجعنا هريرة هيك فردية أو أنكو سماين دونا ما أنت challenge هذا قيمة بدن نلا صعدة كفايديستا و challenge رنتي دينا عنا motivation كا دينا عنا رنتي سؤال واقعية حنبارسن oo aan isleeyahay dhinac wuxuu taabanayaa dhiirigelin weey dhinacna waxa weey filan waa oo waxyaabaha qaar waxa kaaga soo baxaya marka qaar aanad ku sii tala gelin marka qaar waxa ku jira waxyaabo xasuus adiga xasuus ku gelinaya waxaad hore u soo dhaaftay oo kala su'aalo kamida su'aaluhu ma badna laakiin mar walba dhaxtaal baa jiri doona marka nagu xidhnaada nala socda insha Allah waxaan toos kaga bilaaban doonaa challenge-gii kulli waxaan hor yaala halka bay su'aalo badan ku diyaarsan yihiin oo aan ku soo diyaarinay qof walba waxaan isku dayi doonaa inuu gacanta geliyo wixii uu soo baxa markaa ayaan u akhriyi doonaa kadibna waxaas buu inooga sheekayn doonaa oo runtii nala wadaagi doonaa marka waan iska bilaabanaynaa insha Allah akhyaaray maxaa islaaysan diyaar bootiin waaw harago السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا الله Soomaaliyeed ee ku xiran channelka Axmed Daawud markale aad baan idin salaaminaa maalin wacan wanaagsan jimco wanaagsan waan leenahay ogeysiis yar baan idin sheegaya marka halka warqada kala soo baxdo wixii ku soo baxa sidii Ilaahay kugu ogyahay daacada ku ah uun baad kaga jawaabaysaa ama aad u qabanaysaa macna su'aaluhu nooca waxyaabada marka qaar aan is oranayn halkan aad ka soo jeedin kartaa ayaa kaaga soo bixi kara moogti marka waxaan rajeynayaa insha Allah sidii maaragtay Ilaahay kugu ogyahay inaad uga jawaabto marka si qurux badan aad u qabatay insha Allah haddana inoo bilaabaysaa way marka xaragan ka soo bilaabi doona insha Allah gacantu gelin doona wixii soo baxa warqadii soo baxda ayuu aniga igu soo wareejin doona kulli kadibna waan u akhriyi doona waxa laga rabaa marka inuu ka sheekeeyo qisadaas iyo challenge-ga uu ka jawaabo bismillaah rahmaan rahiim wax kastoo la bilaabay horta hadaad bisiga ku bilowdo wax wanaagsan baad ka soo bixi doona ama waxaad markaas qaban karaysaa insha Allah ilaahayna markaa waan u talasnaa waayahay waxaan eegi doonaa challenge-ga Cabdiraxmaan Xarago iyo wixii uu soo baxay waan eegi doonaa insha Allah ila socda wixii uu soo baxay Cabdiraxmaan Xarago challenge-giisa baan eegi doonaa waxaan leeyahay وسؤال رنتي هذه أقيم بدن وي وحاو صباحي ولقى ورقة شعيل ما قرتي ولقى ورقة شعيل ما قرتي حرقوي هدي عاد قرتي س ياضو قرتي هدي عاد قرتي س ما قاعد ورقة دي أو قفكي كسعتي ما قاعدي هدي أي قاعدي س جواب نوعية ياد هالشيء انت بان كادوني انو جوابتو وليبا warqadii hore gacanta lagu qori jiray dabcan la isku dirdiri jiray xilliga ciyaar iskuulka xilliga secondary-ga xilliga primary-ga waxa ahaataba intaanay soo bixin mobile message-ku waa warqadii ka horeeyay baan ka doonaynaa marka waliga warqad ma qortay jacayl السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين هورتا markale aad baan idin salaamayaa kulli horta wixii nasiibkayga waan qaadayaa sidii Ilaahay ugu ogyahay inuu ku jawaabaya markaas insha Allah horta Axmedow ها وان قري جوابت وها وقت قاسنا وقت أدو دومي هين وقت جي برافدة اللي جن شري بحيد مركب واحد شري رنهانتي قبض عن تمركز الوقت جان برافد كود اللي جن شرني لكن أنا سكو كلاس حين بعد ما قررنا مركب أي قد عضي هذاكو ورقد مان مركب واحد شرتي إن بدن بن سكو دي إن لحظ له ودكتور دانو وقت جاب برجع حتى وحنا هن أدس كحشات بنا دتك لما نهدي كريتشرين موقتي عضو واحد يقول صار عظيم مركز تنبينا ورقات قرا ورقات دي بان قراي مركز ورقات دي قرين وديارية هبيني بتكون ديارية ده صقر بدن وقو قراي بان إن بان وقو ديبي مركز واحد نقول إن كي واحد كتر هذا قبل ده صار نغير بحساب فلاري هي تكون قري جرتي معلومات كي جده adigu de waqtigaas waxay hayd adu waxaan sameyn jiray horta warqada markaan qoray wax saab badan ba kuma sii qorin mudiyaro loo foo sida weyn oo fiiro qoray adu markaa wax jirtay markaan adu warqada qoreen de loo fkaarna ku soo si qurux badan u sawray ayaan de inaan u dhiibay moogtay
inankii markaan u dhiibay aan ku iri gabadha halka ka soo baxaysa ama sii socota ma aragta warqadda ay ku dhiibay ninka iyo soo tilmaanba waxaad ku tiraada ninkaas ku soo dhiibay gabadha lafteeda aqoon yar baa naga dhaxaysan laakiin sidaas kulma nasi hadli jirin warqadii buu geeyay warqadii miyay tuurtay horta jawaab waan ka waayo waa sababta warqadaasana igu horeysay warqadaasana igu horeysay iguna dambeysay macnaha markaan jawaab arki waayay jawaabtii la soo celin waayay aduu sheekadaas saasi ku dhacday markii jawaab aad ka weyday muddo sugayso naawilaysi haayo wax kale ma dareemine waad isku ciyaartay daasaan hayay waar waxa maxaa kaasi ahaa maxaa ka qaldanaa عيل مركا قاربان سلادة يا ورقتي وكايس عليا أدب ما تيجي سعيد كن حرقه challenge شيء هو كسر دلالي ورقة هذا قروح بدن أورنتي وقريت عائلة لكن نصيب درة واحد جوابك مهلين واحد لنا هقول تيم ورقة داسة ده هروق تيم سعان كلنا إن شاء الله أو عائلة بدن وكلا سماء مستمد مو عائلك سوا مرون ما يبدين عائلة ما يبدين واي ومركلة هي challenge جيني مركلة هي نقص عندنا وسواشي لبعض كل يجي عنتها لجلين دونا نين هالكلام قاعد ما لحوا حقنا يا عبد الكريم اللي لعبة شراء ورنتي عن سلاية هاي وحنا قصوا بحا وقصبين وسنا سماية وهو challenge وي عبد ستة عدو ولي بس. طبعا سكامت حطوا بوضني حرولي بقى مركي اللي يديبي أرتوا هالكي عبد الرحمن هو بيسك لقوا بلاوا شيء كسر بلاوا بيسك لقوا بلاوا waxaan eegsan baa ka soo baxaya bismillaah qaar baa weyn waraaqaha iga qabo sugdahay doorna duway mid kala doortay Ahmed oo mid gaar ila doonaya war maleeyaa wala soo baxay Abdi Kariim kulli ana akhri doona isna way arki doona warqada Abdi Kariim baynu akhri doonaa wixii soo baxay isleegi أوه سوي أنت تقرأتها سؤال بالكن تهلا محل فيلم سعد كرينا نقط أنا قراب وضنا يحلني ولا شيء كل أنا قلوا صواب بنكادوني هدي أي شرطو حن كويديني أنا وحن كادوني إن ريزن هي يدي سوي شرطي أنا نقورنت haddii aanay jirin sabab baan ka doonaynaa aad sameyn weyday u dhici weyday u yeelan u noqon weyday si aan ka doonayno marka warqad waxay ku leedahay Abdi Kariinow jacayl ma leedahay haddii aad jacayl leedahay oo ay jawaabtu haa tahayna noo garaac oo na maqashii una sheeg inaad ku faanto jacaylkaaga intaasaan ka doonaynaa u sheeg inaad ku faanto noo garaac na maqashii tanaa way ku tala gashan wala Axmed gooliyood igu tala gashay mid kale waa suuq xirde ما أوركان كهلا دوني سؤال سيدنا واضح لكن دي لاعب كاركين سوق هذا قصة حلوة سو عق صاي يقول على يد بقرا يا حق يدي بس حويا أحمدو أرتو مرون بس بيدي روم بالك والله يا سبا روم بالك والله روم بحاول اسمه شيء ما أنت حويا أرتو ولي مربوط على يقول داعي ولي أنت ولا ما شيء ده مرقانا ويا واحد هذا بريمري برها كوري دكاتش عيل ميدا وكيل سريين شري ما صادق هذا بيه هذا نفتح كويس أمرك رود كوكل عيار شري هذا كوري مرقا أرتبرقا سجعيل يقول بيس ربع لو رأكسري كوري حتى صورك ما هلا حتى ما يبعد جوبك وكشرة هذا حوي واحد عائلة ملي هذا واحد عائلة ملي بعد جوبك وكشرة لكن مركان نوصل وحن كادونينا نمد اليرابات هاي ونوجنا هيو وحبرشة مال في عمد مريسا ونوجنا هيو شقيسا وحاصل مكان اسكو صادر درو وحكود يدينا معناها عائلة سمين ويدو بالنلو ذاك أرتوح حويان قفل ورطة قرشي سجار كابو وطها أوليه هي موقتي waxaan dadka horta Soomaalidu wax ma yiraahdaan jacaylka lama xukumi karo marba ish kaaga dhici kartaa qof soo ku jeclaan kartaa waa dabayl way geere horta tan dabaysha Ilaahay habeenkii nabad geliyay ma soo marin
niyaddana waxbaan ku qabsaday waay marka niyadda waxaan ku haystaa waay inaan imika waxba jeclaan laakiin aan jeclaan doono gabadhe sifooyin baa jira sifooyin aad ku duxulato ها سفوين باجرو قف كده وحويان قف بودونيا اسقو غارا ما قرت مركو qalbiga marka ها او دي قف با اسقا maskaxdiisa ugu jira soo ma garan marka qofkii wali marka hore maskaxdaan u sii sheegay research wax walba iska jeclaa baa kul maskaxda garatay wax walba iska jeclaano marka hore u sii sheegay marka waxaan ku يا ها قفك waxa ku aragtay kaalehe astaanta kale leh astaanta leh ayuun bad iska jeclaan doonta marka kiiba waliga soo warbixin insha Allah waan wada wali ma dhalan jacaylkaygu uu soo socda wadadu soo jira u dhow laakiin kulay su'aashaas waa looga qaateen way nooga qaadanayna inagu mar hadduu dee run aynu ka hadlayno challenge-na uu yahay saaxiibkeena uu yiri waan sugayaa wali daway wadadii ku soo jirta jacayl khayr qabaan ku leenahay insha Allah waa mar kale iyo isku soo laabasho wanaagsan waranaaba yarisi ii soo jirtaayo naxnaxay ma xamseen u dhiibaynaa si ay markaa xamsow tawakkal way bismillah tawakkaltu ala allah horeerta ilaahay baan tala saaranaynaa idinkuna ma xasitay dhamaantiin ba insha Allah balse aan fikradaha qurux badan ay kala wadaagsanayno nasiibkayga insha Allah eegi doona hadii ilaahay raado waa mar kale iyo xamse kulli nasiibkiisii buu la soo baxay waynu eegaynaa markaa wixii ay noqoto su'aashaasi waxay noqonaysaa kulli xaraga mid baan ugu celin doonaa insha Allah ama mid baan ku ceshan doonaa dhamaantiin xamsow hooyo ma nooshahay su'aasheedu waxa weeye challenge-ga hooyo ma nooshahay hadday jawaabtu haa tahay noo garaac oo na maqashii oo waliba ku dheh hooyo waan ku jecelahay hooyo waan ku jecelahay billah marka hooyo timaaday qalbiga ay soo qaadmay alxamdulillah horta hooyo way nooshahay waana ku faraxsanahay alxamdulillah ilaahay waa mahad iskale hadda waan garaaci lahaa laakiin way naga fogtay imka aad saawe joogta oo kale de khadka iyo connection iska adag haday khadka hadda ku jirtay imka waa garaaci wal hawa marka imka hadda eegay insha Allah marka noo bedel aaba ma jooga ha aaba noori waan jooga hadaba aabo u qeex waa u bedelena xamse mar haday hooyo safar gashay laakiin ay u nooshahay alxamdulillah Allah isku daayo Allah soo nabad geliyo muraadkeedu macsi lahayn Allah mid gacanta midigta ka siiyo marka noo bedelo de aaba noo garaac bal way adag tahay ummadda Soomaaliyeed marka laga hadlayo in had iyo jeer aynu isku qeexno oo aynu runtii aynu isku qeexno marka tan waa dhiirigelin aan ku wadno dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay gartaan waalidku intuu nool yahay in loo khidmeeyo oo macnaha laga farxiyo la waraysto la dhiirigeliyo loo mahadnaqo ileen kulli ma gudi karna abaalkii waalidka laakiin ugu yaraan aynu isku dayno inaynu mahad celino waalidkiyo xilliyaanay naga filayn hadiyada aynu geyno xilliyaanay naga filayn aynu intaynu la hadalno kool garayno oo waan ku jecelahay aaba waan ku jecelahay doorkaad igu jirto ma ilaawi karo wax weyn bay isagana u tahay xidhnaantii adadeygii waalidkuna uu ka soo baxayaayo ubadkiisii buu jeclaanaya isdhaxgal baa imanaya marka ku soco aaba noo garaac way marka ku fanay insha Allah kulli waa waqtiga saada laga soo baxayba in guriga joogo hadda garaac insha Allah my dear father وصحوي سقي بالقراعة اللي شاتر مال الصيام سلام أبو أنك شعلهاي ميلو وين بعد قطع الله ما يلاوي أبو السلام عليكم عليكم السلام أبو ما في عندي كنادر ما شاء الله أبو حافظة جدا الحمد لله أبو أدم كل سلام يا sidoo kale abo de aad baan ku jecelahay booska igu jirtina waa boos lama ilaawaan aan wali aan ilaawahayn aan ilaawi doono insha Allah marka khayr baan ku soo rajeeyaa caafimaad badan insha Allah jimca maarak baan ku leeyahay sidoo kale abo maanta bal jacaylka aan ku soo sheegay oo de kale waaridnimada bal laba sheegi jirin bal jacaylka maanta ku sheegay sidoo aragta abo bal saacay abo saacay meel wasbad u jirta oo saacay jacaylka maad ma fiihan maxaa xagee jirta abo waan joogaa magaalada baan joogaa insha Allah laakiin de waanta sirfada abahaad garaacdo de balaad u sheegay jacaylka alxamdulillah rabbil alamin aad baan fiicnaan oo wanaagsanay kaanitaan kaga jiraa bal aniga caruurteena way baranta kale insha Allah bal aniga xamsahan gaan gooyaan kaanitaan kaga jiraa jacaylka banimo aniga ay qabto kaanta suuqada fiican kaanta suuqada insha Allah
ما شاء الله هيا بعد ما أحسنت هاي جماعة ماركم خير بونك سلام يا wartaashka cumaamada hala saaro cumaamada xamso ma curad baad ما شاء الله ما لحن كويس لكن هذا نادي وانا لقي وانا ده لقي يريح laakiin waan ka kasbaday waan ka kasbaha ma sha Allah maadaama ay aabahan aad isku jecelahay isxiriirno markasta habeenkii iyo goor kasta aan is aragno wada joogno guri wada noolahay alxamdulillah yaraayo weynaan soo akarnay wada shaqeynay boos ka soo wada shaqeynay alxamdulillah marka waa takeentay markaan saaxiibtana iyo jacaylkaygu uu aad u siyaada marka maanta aad baan si faraxsanahay ma sha Allah maadaama hore deenago iska salaama ku saabdeen iska salaamoyaan caadi ay tahay mooyaan laakiin tan garaacan kool gareen ku aabaan ku jecelahay dadka ma naqaan jacaylkana ku naxna mala waalidka ma aqoonin taana aanta aad baan u faraxsanahay ma sha Allah waa runtii dareenkayga laftarkaygana wax weyn bay ka soo qaadatay iyadoo la fiicnaa hada hooyo baan labadoo garaac ilhaba laakiin hooyo anaga maqantay safar ku jirto aabaan garaacay alxamdulillah ma sha Allah thank you aad bad maadsantahay su'aashaasi runtii waxay u dhigantaa dhammaan su'aalahan isweydiinay oo dhan waa tii ugu muga weyneed weey ugu miisaanka cuslayd nasiibkiisuna runtii u soo baxay marka challenge-giina runtii aabaan ugu bedelay hooyo ahayd hooyo waa la waayay laakiin aabo ما شاء الله waxa laga doonayaa waalidka iyo ilmihiisu inay isku xidhnaadaan oo isjeclaadaan marka su'aashaasna inta baan uga soconay mar kale iyo challenge-gii iyo ninka odayga saaxiibkan Isxaaq ayaa marka loo dhiibayaa marka Isxaaq oo ku soo dhawow gacanta gali tayada ugu qosol badan kulay tayada ugu qosol badan tayada ugu dambeysay bismillah allah ibn daacada bismillah axmedow سؤال فودين إنه قتل لك جوابي كرو واحد فود بالودون يا لكن ضباه إنه يجنو ما شاء الله بس هي صباحا صاحب كان إسحاق نسيب كيسة هي challenge شيء إنه باسكريو هي نسليجنا إن شاء الله سو كوبنت هاي بس هذا أنت هذا قصر الفلان بس هذا قصر الفلان سؤال شو اسمه كلنا ساعة ساقو ولي جاي أنا مش حاطي هدي عاد شحاطي جوابته هاتاي ما كاش شحاطكي هدي جوابته ما ينقطه ولي جاي مش حاضن صببت نور راعي وايد وش حاد ويدي lacag weydiisan weyday ama hawlo kale shaxaad marka runta laga hadlo runta assalaamu alaykum wa salaam dhamaantiin mar kale waxaan leenahay channelka subscribe iyo like share saara sidoo kale soo dhawaadaan leenahay channelka Axmed Daawud official channel inta ka bacdan su'aasha soo noqdo su'aasha waxa ka filay horta sida ay u koobantahay inay u koobnaato gowdhe laakiin ma noqon laakiin mid kale inadoo dhan mise inan عدة دونتها وهبلا كجانب كنيو 30 اكسدي هذا عندكم سؤال شيء بلادي اسكو ماشي والله بقول شيء مدح ويديك تمام gabadha wada shaqeysaan gabadha wax wada barataan inaad wax barataan bay noqon kartaa waxay noqon karaysaa inaad jacayl wadaagteen xagga yow shaxaadka laftigiisa badan mal qofku qofte ama aad wax kala qaadataan oo ama kala de oo wax ka qaadatidii midoo sida ya may ay waxa jeedo dad aad wax kala qaadataan marka soo qaadataan kala maahataan de yani may waxa jirta mid la yiraahdo waxa mid la yiraahdaa jirta wallahi maanta meel adag baan marayay ama tusaalahan gaarigii bay iga goostay shidaal igu soo shub ama casho soo dir ama macnaha marka waa wixii dhiibtiyo farsamaysan baa laga hadlaya marka adigu weligaa ma shaxaaday gabadh inaan aadan islahayn waxbaad weydiin doontaa laakiin dee maalinta ay ka fursan weyday inaad wax weydiiso ما ويدين هو ما ويدين لكن ويدي كودي لكن قبل ما ويدي وده أنت بدن أو لبنا وين قطعه وفترنا حبلا سكوب بدين كودي
alxamdulilah inta badan ragga aad u saaxiibnahay oo asxaab badanna meel walba kala joogaan halkan noo ka salaamaya laakiin gabadh wax yaraad kaadaan rag baa wax soo weydiiya adna aad weydiisaa dee rag haa ama kala qaadano ama siino ama hadno nin haa la geray laakiin gabadh cabdikariim baa igu yidhi cabdikariim baa casho ma weydiisa waxaan balay kolle wuxuu ku keenay isaga casho weydiiyey nin isaga nin xadaariyo marka isaga casho weydiiyey oo filayaa adigu casho ma aday ku joogtaa laakiin adigu ma weydiin waxaad inta badan saxaab lama yihi lama yahay taasaan keenayn inaan laakiin waxaa laga yaabaa in xagga waalidka iyo gabdhaha walaalatiin iyo taas yarda ka baqaya videoga in hablo badan kugu nacaan asxaab badan imika chance laga dhiganaya fursad ama mid baa kuwatiga ugu soo qoris anigi sii qaadatay arrinka runta iska sheegay cabdikariim horta wax badan baad ogtahay nin wax badan og baa tahayo waxyaaba isku dhalinyarada isku ciyaal baan hayno waxyaaba badan ba soo maray كل نستعيد سكول قولوا كقاد قاعد شيء هم قطين عيدوا بقى نقول إحنا وجيه لكن وحنا ويدين ما ويدين أنا كويدين لكن ما أنا جاي مريسي ما ما يدي قد يسان واخر حمسو ده هرت على صباح إذا كاي صاري واي بسم الله الرحمن الرحيم ما يحرقها من اللي يقول عليا adigu aan haw qofan baqti nasiiban tuuray wato ugu dambeeyay laakiin anigu aan la soo baxo Allahumma salli ala Muhammad miyaan ku noqdaa miyaan ku qanciyo tawiin bay soo qorantay tawiin baa ma qorshe dheer ka hadlay waxay loo baa tii yareed baa wax meeday hooyo deeg idhi baan akhriye kana ku furiyay هاي فاشن آخري waligaa jiib ma gashay هاي وارتر والله شغال قوي تر ارتاعوا إلهي ما كنا ارتباط ولا ما كون في رسالة madax baad ila sugaysaa waa soo baxday وانت شغال قوي ساتر way كودي way weligaa jiib ma gashay warta ku jirta weligaa jiib ma gashay hadday tahay haa si lagu tijaabiyadii waxaad nagu hor samaynaysaa 5 xabo bushaba hadeer markaad fadhiisanaysa waa adiga dhacayo inaad ka jari karay marmarley waa challenge cabdikariim ma dhasho madam baad la sii sugaysaa way maadaama challenge yahay in ardaydu ka hor sameeyo lagu qasbay marka 5 xabay triya ha waan sameeyay gym waan geli jiray gym kale waan ciyaari jiray muddo laakiin muddo ka hor bay ugu dambeysay wax laga yaaba aan ay imka jirkayga garbahayga la haysanay laakiin waa isku dayay maadaama challenge tahay may waxa weeyaan horta warqad si taweyn markaad soo qaado wax weyn ma kula doonayni siiri walaada siiri walaan ku wax ku qabanay baan Cabdiraxmaan siiriga way mina ka saamixi utri بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي قالقة سؤاشي أحمد داود واحد واحد نوغش شرطة شن مرو بوش أبا وكا هاتا سمينا إياه وريو بوش أبكاس لما الدوني ندمدنا كورو تاكتو كو ما إمكان كو بلعبه ماي عادي دول كو صادون كورنو ساكا دمدنا كورو هاو تاكن كو لابا صدح أفر شن ما شاء الله أصحاب تقالقة ما شاء الله واجبات كيسو كصوب حي شنتين أو كتشري إنك استوى حنقول درقي بسكسو دلعي يا hadduu 5 midho kale ka jiri lahaa waxaan hubaabay inuu afka dhiig ka keeni lahaa marka ilaahay baa inta uga dhigay marka waan ku soconaa hawsha waad aragtaan oo runtii la isku turayo meesha waxaan ku wari neeftuurkii wadinka arkaya misal channel ka dhigana ana ka jawaab marka hore qaadanaya kadibna ama idin ana ugu dambeynay waayo
sooyinka yar kala kulule waxaan tan xaragaan ka soo bilaabayna insha Allah xaragaan ka soo bilaabayna su'aashan waxayna odhanaysaa saxaabay waxayna odhanaysaa weliga adigoo duruuf adag ku jira qof ma ku saaciday weliga iyo allaha intaad noolayd adigoo duruuf adag ku jira qof ma ku saaciday hadday jawaabtu haa tahay weliga qofkii ma u mahad celisay oo dib ma ula xidhiidhay oo macnaha ma u mahad celisayoo ama dee abaalkii ma gudday mise waa weli haddii ay su-aashu maya tahayna dee bal noo faalle sababtaad ma gurigii hooyin baad iska dhex joogta weligaa miyad maxaad sababa duruuf adag u mari weyday macnaha faalle yar baanu kaa doonaynaa marka cabdiraxmaan ku soco horta aniga way jirtaayoo waxaa jirtay dee duruufuhu horta way kala duwan yihiin duruufta lafteeda haddii aan sii qeexo lafteeda waxa weeyaan horta waxay ugu darnayd habeen uu gaadhi meel iga galay habeen oo weliba kowdii habeennimo ahayd buu neesaga geli gaadhi moogti markaa waxaa jirtay markaa neestaa wallaahi meel dadku xilli ay wada seexdeen bay ahayd yacni magaalada dhexdeedana way ahayd oo guryaaba ii dhawaaba laakiin waxa dhacday anigaa horta ku raftay oo dee waxaan sameey mar aan ciidda ka soo guro meel iska yar halis badanna way haydoo aan soo odhan karo de haddii maanta ay dad ama dabaajira ay soo marto muxuunda ay samayn lahaayeen marka wallaahi waan ku raftay habeenka aad baan u xasuustaa marka maasha allah wallahi waxaan xasuustaa nin aduu xaafadaha shacabka galo oon asxaab nahayn ayaan markiiba wacay oo markaas subeer lo odhan jiray ninkaasaa markiiba yimid aduu gaadhi kaluu markaas soo kaxeeyey aduu sidii baan meesha kaga saarnay markaa ninkaa dee anoo duruufta ama dhibtaa ku jira ayuu iga soo dhex galay uuna iga saaciday waanan u mahad celiyey dee mahadcelintaas weliba dee waxaa jirta mararka qaar isaga laftiisa qof mar ay hawshaasi qabsato oo kale in aad saacidaysa isaga laftiisa marka isaga laftiisa taa jawaabteeda waan saaciday isaga laftiisa marka aadna waan ugu mahad celiyey marka aniga taasay igu dhacday oon aad u sii xasuusta way jiraan waxyaabo badan oo kale laakiin tani waa mid dhowaan dhacda bay ahayd taas baanan kasii xasuustaa dee aniga intaas iga eegtay markaa jawaabtii adigay ku maraysaa xaraga uu inoo sheegay duruuftii adkayda soo martay jawaabteediina waa ina siiyey uu mahad celiyey qofkii duruufta adag ka saaray ama la xaliyey mahad celintiina waa siiyey xamsu adiga weligaa duruuf adag ma ku soo martay hadday ku soo martayse laakiin cid kaa saaciday miyay jirtaa ciddii kaa saaciday lafteedii ma u mahad celisayoo adigoo weynaaday kadib iyo adigoo yar labadaba hadday goortay ahaydba mahad celin waafiya oo macquulo u yara dhow macnaha wixii lagaa saaciday markaa qofkii ma u mahad celisay mise waa weli way axmedow weli su-aasha adaa sii wada bal duruufuhu way badan yihiin qofka nolosha jaranjarada nolosha markuu soo maraya way fara badan yihiin ma waxaad jeedaa markii yaraantii weynaantii aan soo soconay broseska waxbarasho kusoo jirnay mise intaan aan weynaanay dee aanba ganacsiyo wax bilownan shaqada iyo xaggan aan ku jirnay mise tii ugu darnayd ee ugu adkayd baa halkan eerkaa faale insha allah waxaynu odhan karnaa tii ugu adkayd aad xasuusato tii ugu adkayd duruufku soo marta oo aad weliba xasuusato hadday jirto taabaan u baahannahay noocay doontaba ha noqoto waa si fiican horta marka hore bal waxaan yidhi eeg bal intii hore ee way badan yihiin processku way iska badan yihiin laakiin qaybda family baa soo gelaya kolba waxbaa soo yargelaya halkaa ma doonaya waxaan kasii hadla insha allah laakiin waxaan ka hadli karaa challenge-gu markay bilaamayaan ba carqaladaha iyo wax ximaadaan waxaan xasuustaa marka businesskan bilaabayay businesska hadda aan ka shaqeeyo ku naaloonayno dhammaanteen baan ka wada shaqeynayno forever living product businesska markan bilaabayay ayaa waxa ay markii ugu horeysay ganacsiga iyo information-kan qaatay aan jeclaaday inaan wixii bilaabo laftirkeedu waa challenge markaas ganacsiga dumay oo ganacsi hore aan bilaabay iga dumay oo si shaqeyn waayay si socon waayay anigoo markaas si kandhan oo naxdin laftirkeeda si hayso ganacsi hore ku soo fail garoobay kii kale hadana doonayna bilaabo laftirkeedu ay tahay challenge in wax bilaabo ay noqonaysa yara adag tahay ayaa markan waxaan ku xasuustaa ilaahay khayr ha siiye marka ganacsiga hore aan bilaabay faruqabsi ganacsiga hore aan bilaabay order ka horiyay alaabta hore kan sameeyay iibkan sameeyay ayaa inaan bayga caawisay oo alaabtii ugu faraha badnay ila si caabisay iyo si shaqaysay kadibna macaamiisha customerski igu soo xidhay kadibna si ganacsiga ka soo dhigtay markaa mid base ka dhisay yahay oo secondary si koo socda ilaa maanta halkaan ka taagana marka horta taas aan ugu baran karaa inta weynaatay imka wax challenge ka hor yimid intaas base kaas yarahayd intiina si aan ka soo baxay alxamdulillah duruufo inta ka sibadan way jiraan yaraantii way jiraan laakiin tan imka hadda ka xasuusto inta dhawaanahan taas aan kala insha Allah
aad buu mahadsan yahay xamse waxayna la wadaagay su-aashii dhextaalka ahayd oo ahayd duruuf adag weligaa ma ku soo martay mid ka mid a ayuu inoo soo qabtay waxaanu inoo sheegay inay gabadhi aad u saaciday gabadhiina aanu ma u mahad celisay adigu weli hadal iyo waan uga mahad celiyay laakiin si dhaaragtiyo leef aan bahan bal iyo hadiyada weli taamaan gudin laakiin waan rajeynaya inaan si weyn oo si afashiyaala inaan u gudo insha Allah Abdullahi raad qofkaasi miyuu kaa lunsan yahay oo dadku kaaga dhex jiraa mise waa qof aad garanayso markaad tiraahdo u mahad celi wax weyna dee u gud aad heli karayso ها وقف dadka iga calaamasa mar kastaba xusuustay maankay ku jira gacan si dadka kale iga saar marka mar walba aan rajeyn doonaa insha Allah inaan mahad celin weyn insha Allah aan u sameeyo Abdullahi raad aad buu mahadsan yahay walaalkan xamse waa mar kale anigii ayay soo gaadhay qisar runtii aad u xanuun badan oo aniga ay soo martay waqtiyada kamid ah oo runtii aan weligii ilaaweyn baa jirta laakiin ma ugu dambeeya way Cabdikariin ku soo dhow qisadii kugu xanuunka badnayd iyo qofkii ka saaciday haduu jiro iyo waliba inaad u mahad celisay iyo inaad wali u mahad celin intaas nooga sheekay insha Allah Axmed oo aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan kolay noloshu waa qaraar iyo macaan baa leeyahay oo marna nolosha in qaraar baa ku soo maraysa marna in macaan baa ku soo maraysa ninka ragga ama gabadha way oran karnaaba waxa weeyaan waa qofka horta soo jaba qofkan wax qabsan karana weeyaan mar kastaba meel gaari karaya qofka israado waad isku filan tahay ama ba caqabadaba soo marayba way caqabadu qof adag bay ka dhigtaa ma ogtiin qofku caqabada uu soo maraa qofku ka caqabada badan yahay laakiin dadka qaarna way jabisaa dadka qaarna way adkaystaan marka kuwa adkaystaa jeer waxay ka dhigtaa maxay qof adag bay ka dhigtaa nolosheeda aniga dad badan baa saameyn igu leh aad baan ay u farbadan yihiin horta de waxa ka koowayna mar kastaba na de amaantooda koobi kareen iyo ma garatay mahad celintooda labada waalid oo caqabada xitaa inagu garanaynin oo ina ogsooneen xitaa inala soo maray baa dhici karta moogtay marka laakiin waxaan oran karaa intii aan garaadsaday waxaan xasuustaa wana mar waqti hadda laga joogo muddo badan glass 8 ahaa ayaa waxa dhacday inaan goostay inaan tago magaalada Berbera anigoo Burca jooga inaan magaalada Berbera tago bal qof isku filan wax qabsan kara inaan noqdo anoo haddana glass 8 meelaha inaan haban filaya 7 meelaha waxaan xasuustaa nin kamid ah marna de asxaabteeda ah marna waalidii ah oo yani waalidhaan wixii ugu noqday waxyaabuhu ila soo qabtay runaantii waa qof aan runaantii waa qof aan mar kastaba maankaygaan ka bixi karin waxyaabo badan buu runaantii la soo qabtay oo ay ka mid tahay nolosha inuu teeda wanaagsan igu tababaro qofka bini'aadamkaana waxa wanaagsan inaad wax siiso waxa ka wanaagsan inaad nolosha ku tababarto wana time anagoo sometime waxyaabaha qaar kaban iyo jawaab marka qaar nolosha oo marka qaar jecel adaba inaan iskuulka ka fail garooba ka tago igu soo adkeyn jiray haddana inaan sii dhigto waxyaabo badan haday noqoto aqligiisa haday noqoto ma garatay maalkiisa labada inta bay sii huriyay waxyaabo waaweyn oo kala runaantii kala soo qayb qaatay ilaa aan oran karay marka lafteeda marka qaar bii la soo hadlaayo soo weydiiyay xaalkayga halku maray waxyaabahan u baahanahay marka ma sha Allah mahad celin balaaran waan u sameeyay wana jecelaynaa marar dambe oo kale aan u mahad celiyo marka ninka odayga saameyn adag buu igu leeyahay waana waqtiyo badan oo duruufo fara badan yihiin sheegidoodana macna badan ma sameeyay laakiin waxyaabo fara badan ay runaantii kala soo dabaashay ninka odayga aadna waan uga salaamaya xaggan aad baad mahadsantahay Cabdikariinow walaal noo qeexin duruufta oo general ka dhigtay haddana waxaad noo sheegtay inuu jiro qof noloshaada ku weyn waalidna aan ku ahayn ehel dhawna marka qaar inaanu noqon ba laga yaabo laakiin saaxiibka uu noqday kadibna uu wax badan ka saaciday wax badanna uu runtii uu ka garab galay mahadnaqna aad u hayso aad u mahad celisay laakiin wali mahad celin weyn oo isaga laftiisa surprise la yaab ko aanu ka filay miyaad u samaysay mise waa wali meetaas way hadhan soo wada taas way soo socotaa aad baad mahadsantahay waxaan ku wareejin doonaa Isxaaq oo inoo soo koob insha Allah qisooyinkaagii guusha qisooyinkaagii xanuunka lahaa noloshaadii hore ma jira duruuf adag oo mar ku soo martay oo aad meel ku calaamadsatay oo oran karayso wallahi duruufta hadaan qofkaasi ka soo gaarin waa lagu waayi lahaa amaba dhibaato hadee ka soo gaari lahayd ugu yaraan laakiin qofkaas shimbir ilaahay kaaga soo dhigay ma jira ma u mahad celisay haduu jiro mise waad rajaynaysaa inaad mahad celin doonto waxa jirtay inaan tago aan wali bixin يعني إذا واحد تورط إنه واحد دتك كسر صعد كبدن جوالد أنت بدن تعلنا تجان ماله بدن أندقية ماله أندقين إنبه واحد تج عرقاب أنت كنت يعني دلالة أدوش تعلنا أنت جو هيك بدن عن أصحاب كاهين مركان مركان شوقي لا لبويك
oo intaa aan iswaday anigu dee qarashkayga iyo waxayga aan isku waday ayaa waxaa dhacday mar dambe in qarashkii aan hayay iga go'o sidoo kale waxaan haystay akoon baan isticmaalayay oo xagga dahabshiil ahaa marka xarunta dahabshiil ee xagga ku taalay iyo cirgaabo ku taala waxa la isticmaalaa buugaagtii hore akoonada buugaagtii hore ayaa la isticmaalaa kuwan dambe oo kuwa imka kaarka dadta wixii yaraan isla la soo bax ayaa meel kala bixi waayay dadta nin aan saaxiib ahayn oo Cumar Cali Ciga Cabdi la yiraahdo oo reer cirgaaba halkan uga mahad celinayo ayaa marka waxay habeenadu doonayaan soo baxo aan soo noqdan doonay kaarka habeenkii la sii goosta meesha gaariga waa ku go'naaba marka qarashyo kale waxyaabo kale barnaamijyo kale aan qabtay waxaan doonayay oo lacagahoodii aan la siin wali waa sugay laakiin waxa laga soo daba diraya oo qolo aan barnaamijyo qabtay ahayd oo inta badan intii baan waxyaabo aan sameeyay ay ahayd aan dad u sameynay kabacdi waxaan ku ninkii inuu saasa jirta barina waxaan doonayay inaan baxo qarashkina wuu iga go'ay kaarkina waan goosto $20 baa kaarkiisa waan goostay ilaa iyo Hargeysa wixii aan ku bixi lahaa baan doonayay ninkaasi isaga laftigiisu dee nin xaafadii joogaba laakiin nin shaqeeyay baa meeshu doono ka qabtay ninka wuxuu waan keenaynaa lacagtiina uu soo qaaday alxamdulillah lacag fiican oo markii dambe aan u celiyay wax ka badanna iga mudnaa isaga laftigiisu insha Allah uu yimi halkan igu yimi Hargeysa ku soo dhaweeyay xalay ugu dambeysay iga noqday isagoo Cirgaabo ku noqday in badan uu ila joogay halkan ninkaas uu mahad celinaya oo meel adag oo qof uu ku kala meel adag meel aan dad ku joogin qof aad u caawdo qof aad wax ka siyaamahato qof aan jirin baahayd moogtahay oo adag yahay baahayd waxa kale golisiyo shirkado kale laga isticmaalayo way adag tahay inaad bahalkaysa walo meel badan qurux badan ay geeyeen intii aan deegaanka joogay oo gawaadhi qurux badan iyo meel fiican ay geeyeen ninkaas uu mahad celinaya ka Axmed Daawud ahaan duruufii aniga ay soo maray runtii aad bay u badnaayeen aad bay u noocyo badan yihiin laakiin ta aan wali maankay ka guuxaysa ee aan wali ka bixin waxay ahayd anigoo nin dhalinyaro aad u yaraa oo markaa aad u yaraa oo runtii magaalaba aan arag oo qof tusaalahaan xilligii qaxoo kale miyin lagu dhalay baan ahaa tusaalahaan markaa aad baan u yaraa waxa dhacday maalmaha ka mid ah qofkuna markuu yar yahay waxa laga yaabaa dadka qaar way dabeecad wanaagsan yihiin qaarkoodna way dabeecad qalafsan yihiin markaan waxa la igu tiriyaa qof dabeecad xun baan markaa ahaa markaan yaraayo aad baan u necbaa waxyaabaha qaar marka waalidkii baan istagaalay hooyo adigu dishay bay ahayd wax la igu adu ma garanay waxa la igu yiri wax waad yar tahay ma awoodid inaad lagu diro xoolo wax noocaas inaad raacdo ma awoodid fadhi guriga fadhi oo halka ka bixinaada bay dacwada ku cunaysaa macna ana marka waan xanaaqay sidee lagaga reebaa waan ka daba orday adigu waa la soo qabtay waa la uleeyay bay ahayd anigu ooyiya baan kabiintan meel ku bixiyo ku tuuray ayaan reerka iskaga dhaqaaqay qisada dhaqaaqi marka wuxuu ku salaysnaa inaan u tago eedaday oo maqlay inay magaalo taalo eedaday marka aan maqlay magaaladu meel ay tahay waan garanayaa location-ka inuu gaarigu xagga ka soo galo xaggaana ka baxo laakiin ma garanayo dee location-kii magaaladu ay iga xigtay iyo meel aan ugu hagaago iyadii lafteedii iyo gurigeeda ma garanayo laakiin waxaan isruun ugu yaraan dad magaaladii gasho magaalada marka waxaan aaminsanahay maadaama aad u yarahay inay laba xaafadood tahay sidan guryahan aan wada naalo oo kale ee markaa deegaanka waan socday maalintii oo dhan cagaa ku socday waan ordayay intaa gaarigama hor yimaado dad igama hor yimaadaan qofkaan arkay inuu iga soo horbaxana waan ka wareegayay wadada adigu waan maalintii oo dhan saan u ordayay baa goor casar gaaba liiqa ayaa waxaan galay magaalada dulcad ma garanaysaan dulcad marka waa Itoobiya oo meeshii qaxootiga loo qaxay dadka ugu badan deganaayeen Soomaalidu ay deganeed weey dulcadow waa wada buul kaasoo waliba buul wada cada macnaha bacad oo UNT ayaa mid walba ku dedan waa la isku wada eegyahay taanu magaaladii ma socdo waa magaalo kale aan u socdo harta sheekh la oran jiray harta sheekh aan u socday laakiin anigu dulcadii aan ku soo hagaagay waxaan u qaatay in harta sheekh tahay isku wadaag marka xaggaad ka soo gasho haddaad siraa ku soo noqo ma garanaysid meel ay ahayd mar walba waa luuq isku wada eeg dad baa taxana wax kala iibsanaya magaalada waa isdhex qaadaysaa carruur iyo ciroolaba laakiin waa wada buul dadkuna wada cawleyn dee macnaha xilli qaxootiye ahayd magaaladii baan soo galay cid wax ma weydiiyo orod baan magaalada ku dhex qaaday buul isku wada eeg guri walba waan hor istaaga malin eedda ka soo baxdo
si aan isku lahaa kanay ka soo baxaysaa yareeg oo qof kale ka soo baxo aan iska dhaafo aan haddana ku kala hor istaago kanay ka soo baxaysaa malaha ee aan iska dhaafo ayaa waxaan waddo yar maray malaha in ka badan 20 jeer ya 20 jeer in ka badan baan waddadaa yar maray markii aan 20 jeer in ka badan maray bay show islaam bay fiirsatay oo tiri kan yare naftu hayso ilaan safar dheer baan ka yimid weliga aanan gelin ciyaalna waanahay labadaasaan xubba ka sii daynaya BAC ma yidhaahdo qof wax ma weydiiyo go-aankaygaan ku socdaa macnaha inaad adigu hesho yoolkii aad lahayd oo inaad deedeeda is aragtaan islaanta markii dambe ay soo qabatay anoo ag maray warba kaalay hooyo saasaan u eegay mayadadaaba maya wallahi ma siid iyadii baan iska gundhiyey xataa aan siri tolo miyay ku qalanaysaa maxay ujeeda ya kaasay ku tiri hooyo waan ku arkaa inaad lumayso iyaal la tahay qofna aad raadinayso oo 10 jeer in ka badan baad soo hormartay ayaad halkan soo martay bal ii war miyaan warrami karaya naftiba i haysaba markaasay horta biyahan cab biyay ugu qabatay biyii markay ii dhiibtay bay aan biyo cabay baan nafsay markaasay garaadkii ku soo noqday maskaxdii araggii indhaha iyo ii wada wanaagsanaadeen markaasay igu tiri hooyo xageed ka timid iyaad laakiin u socotayadeed raadinaysay ma magaalada tahay oo ambad baa tahay oo gurigiinni baad garan weyday mise meel kalaad ka timid ba saan ku maye magaaladan u socday laakiin waxaan ka yimid meel miyiya oo miyigiina maxaa la ma garanayo wallahi meel miyi ahayd oo yaad u socotay eedaday oo dadaalkii degantay magaaladii harta sheekh tan aan joogade saantii madaxa isqabatay harta sheekha ahaa waan gartay inaad lunsan tahay hooye halkan harta sheekha maaha waa dulcada waa magaalo kale يا بلايك وهل كان مقالدي وماها وصوت المقالدي السوق dadkii isdhaxay waxa asay ku tiraahdo magaalo kale magaceed idada markaan ku caasha iyo caasha cabdi daawud iyo waxaan deebtirid waan khaldaya magacii laftiisa iyo deeyad baan u yaray laakiin adu labadii magac ugu horeeyay isku toosiyay waabay garatayba caasha cabdi ba ay idda kuwa ha magaasay tiraahdo ma garanayo magaalada meeshay ka degan tahay hadda sheekhi laakiin waanu saragnaa waan aqaanaay waxaanu safarnaa isbuuciiba hal mar ama laba jeer baan magaalada tagnaa wax ka soo adeeganaayay gurigayga iskaga noolow muddadaana qof tegayaan raadin oon kugu daro ama anaaba tegi doono dee waan ku geyn doonaa idada talo islaantan maxay soo wadaan isle aniga baa shikirsanoo isle talo miyay ku qalanaysaa talo ma filin kalaha ya kolba ha adigu islaanta sidii baan dee naftay si waaban gamayo dhag gurigii baan seexday mooy laba maalin waxbaan dee adu ya cuntadii baa lagu yar qulaamiyey adigu sidii baan kusoo kacay maalintii dambe adigu isbuuc markaan meeshii iskala yar qabsaday aan iska dhex joogay ayaaba maalintii dambe aan magaaladii tagnay magaaladii iyo dadkii isku dawaqeen oo waalidkii iyo cid walba isdhaaftay oo dee meel walba la iga raadiyey anigoo markaa dacasirinta ii siibisay ayaabay sidii gurigii adaygu geysay waa xasuustaayo markay gacanta iga saaraysay bay runtii igu tiri hooyo waa tan idada maasha Allah inankaygii baa tahay dee intaana dee waynaka islaanta runtii maamada ah ee aniga markaa waxaa ii samaysay ilaa hadda ma garanayo magaceedii meelay ku nooshahay ma garanayo laakiin waxaan xasuusanahay qisada dee adag ee ay igala soo dhex baxday inay mudan tahay inaan u mahad celiyo wax weyn aan la qaban karo mustaqbalkaan isleeyahay wax weyn la qabo haddiiba dee aan arko meelay ku nooshahay ama meelay joogto ama magaceeda xitaa ma ka soo yadan magaceeda garanayo xitaa idaan garanaynin marka hadaan weydiiyo oo aan dee ma garanayso kulay dulcad waa laga kala guuro meel dee waxay ahayd iska qaxootiyay ahayd xilliga magaaladiisa ku nool Hargeysa badanka loo soo noqday harta sheekha qaar deegaan qaarkood miyo I don't know laakiin waa qisar runtii aniga dee mar walba igu taagan oo haddana iyadii waa lafteeda aan isleeyahay cid kala caawi oo dee meel adag maraysa ama xaalad adag ku jirta marka qisooyinku way badnaayeen taa baan igu la yaabadnayd marka aad baad mahadsantihiin waxaanu leenahay dadka waxay noo tara aynu xasuusnaano dadka ina caawiyo xilliyada adag aynu ka war hayno waxaan markaa qisooyinkan aan idin weydiinay aan u soo qaadanay waxay ahayd inaynu dad badan xasuusino inay jiraan dad yow wax u geystay ama gacan ka geystay inay noolaadaan inay guuleystaan inay magaranaysaa horumaraan inay magaranaysaa xilli adag oo ay ku jireen ay kala dabaashaan ama xilliga qaxootiga ha ahaato ama xilli dagaalaha ha ahaato ama xilli waxbarasho ha ahaato ama xilli inuu qofku caloosha wax geeyo oo cunto la siiyo ha ahaato marka waxaa jira qisooyin adag oo qof walba soo mara laakiin waxaa la yidhi dee la yeelaa
ma ilaawo macnaha qof wax loo qofkan wax ku siinaya markaa ku gacan qabanaya uu ilaawaya isagu markiiba wax iska simple oo dee mar soo maray buu noqonaya laakiin adigii lagu sameeyey lagu gacan qabtay ama lagu caawiyey ama dee meel adag lagala soo baxay ma ilaawaysid qisada laakiin inta ku noqotay mahad naqda aynu ugu yar aynu markaa mahad celino aynu dadkii dib u xasuusanno aynu insha allah dee saas aynu balan aad baad mahadsantihiin mar kale waxaan idin leenahay ku xidhnaada Axmed Daawud Official Channel channelka dadweynaha channelka dhalinyarada like iyo share iyo commentiga aad baad mahadsantihiin thank you